weliga ma maqasho dhacda waxaad hadda aragto maahan dhammaan waxa loo jeedo. haddaba si aad u fahanto waxaan kaga sheekayn doonaa qiso gaaban ee keliya aan gacadsanaya waqtigaaga. waqti hore nin aabe ayaa 4 wiil dhalay, wuxuuna doonayay inay bartaan cashar weyn, isagoona mid walba u diray safar uu ku tagayo geed ku yaala meel fog. laakiin xilliyo kala duwan ayuu diray. wiilkii koobaad ayaa geedka soo arkay xilli jiilaal kii labaad xilli guga, kii saddexaad xilli xagaaga, halka kii afaraadna soo arkay xilligii dayrtaa. markay dhammaan soo laabteen ayuu aabahood ku yidhi, maxaad soo aragteen? wiilkii xilliga jiilaalka soo arkay wuxuu yidhi, geedku wuu qalalaa wuuna qalloocnaa, wuxuuna u ekaa mid dhintay. halka kii xilliga guga soo arkay uu yidhi, maya, wuxuu lahaa buro cagaaran, wuxuuna muujinayay rajo. wiilkii xagaaga ayaa isagu yidhi, geedku wuxuu lahaa ubaxyo qurux badan iyo muuqaal indhaha u roon. halka kii dayrtu yidhi, idinku waad wada khaldantihiin, geedku wuxuu lahaa midho bisil oo dhadhan leh. aabbihii wuu qoslay, wuxuuna ku yidhi, dhammaantiin waad saxantihiin, sababtoo mid walba wuxuu arkay xilli ka duwan xilliguu ka kale arkay. haddaba ha xukumin qof ama xaalad adigoo hal marxalad ka eegaya. noloshu waxay leedahay xilliyaal, qof kastaana wuxuu marayaa xaalado kala duwan. samir yeelo, wax wanaagsanna waxay imaadaan markuu wakhtigu bislaado. waxaan rajaynaya ka faa'iideen. walaalkiin Sakariya Maxamuud, aad ay mahadsantihiin saaxiibayaal.